maanta waxaan soo boonimi degmada Salaxley ee gobolka Muradjeex gaar ahaan xaruntii hore wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka oo hore u shaqeynaysa oo maanta shaqeynaysa ayaanu dib u keenay qalabkii iyo adeegii u baahneed kadib markii cabashooyin ay deegaanka ka yimaadeen xaruntaas runtii baahi badan loo qabo dadka deegaanka oo degmada Salaxley ay tahay degmo aad iyo aad u ballaaran run ahaantii ah deegaanka Muradjeex halka ugu badan xoolo dhaqatada ugu badan ay degan tahay xooluhuna ay ku nool yihiin run ahaantii aad iyo aad ayaan gobol ahaan Muradjeex anagoo waftiga kala socno Suduwi iyo maamulaha cusub iyo sidoo kale kalkaaliyii hore u joogay goobta iyo xildhibaanka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado agabka la keenay iyo dawooyinka la keenay degmada Salaxley run ahaantii baahi badan u qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo kawgii iyo halkan ka shaqeynay kawskii xanaanada xoolaha kan u joogay kalkaaliyihii waxaan halkan markii hore uga mahad celinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan qaybta gobolka hibaaq ay ka tahay kusimaha Suduwaha waxaan leeyahay wasaaraddu waxay noo ka dawadeen noo keentay mar horena way noo keeneen way idka mahad celinayaan inkastoo waxyaabo yar oo ay ka dhiban jireen haddana waan idin mahad celinayaa mar labaad waxaan soo dhaweynayaa maamulka cusub Dr. Axmed oo in cusub oo ninkii hore la bedelay sida ayadee wada shaqeyn wanaagsan marka hore waxaan Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala nagu sameeyay inaynu xaruntii degmada hore u shaqeyn jirtay aanu dib u furnay oo maanta u yeegleelnay iyadoo taasoo dib garanaysa habeen iyo dib u daajin loo sameeyay waxaana nagu mahad celinayaa guud ahaan wasaaradda gaar ahaan gobolka isku duwaha ama kusimaha isku duwaha gobolka oo maamul daajin u sameeyay wanaagsan waxaan rajeynayaa shaqada la yigmaday inaan halkii sidii lagu talagalay nagu soo baxo deegaankana nagu shaqeeyo waxaan rajeynayaa inaad xaqiina iigu soo dacaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta halkan farxad weyn baa ka muuqata qoladii xanaanada xoolaha hadii halkan ummad xoolaad ay tahay ama dadka deegaanka dhaqanayay inay dawooyinkan maanta ku soo qaadeen degmada Salaxley horena ugu keeni jireen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa farxad kale ay taalayo awal hore rag wax sidun baa iman jireen maanta inanba halkan maanta isudu ku sii simaa ayaa noo wada dawada marka in had iyo jeer haweenku imika waxay yiraahdaan tandarkii lama daadajin cankan lama sameyn anaguna xafidaada xagga xoolaha imika ragi saadunba geel horiye geelnaba ku dhaqaaqaane halkana dumarka xoolaha dhaqa waxaan maalin dhaweyta la kulmay inkastoo inaan ka duubo aan sharcigu banaaneyn laba dumar oo neef geel isku haaneedaya sababna waan ku leexdo waxaan idhi ومي رجي وهردابا اللي يقول مركا يمكا دذلك يحولون حق هواين كو قلي دودينا حق هواين كي قشي هذه أدبان سودويننا وقم هذا علينا وحن لها أحمد لو سو بدلي هل كنا إنه ده حلكيسا سفي عنه وقصب حدانه ونور تشينيا أنا كبرتي دي كوليهان حلوان وحمانتا كوتشرة جيل ay leeyihiin reer ayeegay oo reer gadiido kul gadiida hayab marka waa soo guurtadii oo dhan baa halkan maraysa in dawadii la soo kordhiyo oo in adeegii la soo kordhiyo xanaanada xoolaha wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka xigeenka agaasimayaasha suuduwayaasha waa uga mahad celinaynaa laakiin Salaxley area xoolaynta lahayd yaan lagu xisaabtamin soo guurtadii baa maanta halkan aad ugu badan marka in xoolaheena loo dadaalo waa soo jeedinaya